fariin ku socota dhismaha golaha deegaanka ee degmada Cadaado fariintan soo saaristeeda waxaa iska kaashaday radio codka gobolada dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug hoodi wariyaa jooga halkan hoodeen soo gal faadmo bal xaaladda ka waran ee caafimaadka iyo caruurtaba waan fiicanahay adiga sidee tahay magaalada ka waran waan ku fiicanahay walaalay ee magaalada maalmahan way iska kacsan tahay warkaaga Kembal maxaad haysaa faadmo miyaadan ka warhayn maalmahan in Cadaado loo sameyn doono golo deegaan oo maxay tahay wax inooga aadan golahaasi deegaanka waxaa nagala gudboonaa xuquuqdeena ka raadsano golaha deegaanka degmada Cadaado oo ah 30% una dhiganta ugu yaraan 6 xubnood ma kula tahay in odayaasha ay hadalkeena dhageysan doonaan xuquuqdeena halkaan ka heli doono waan rajaynaynaa in hadalkeena ay dhageysan doonaan sababtoo ah haweenka waa qayb ka mid ah bulshada wardaawdii waran saata xaaladaada war Cismaano waa fiicannahay adoo xaaladda ka waran ma sha Allah niya waa ladanahay baryahan Cismaan arkin waa la kala mashquulay sidii loo bilaabay dhismaha golaha deegaanka degmada Cadaado bal ka waran xaaladaada adiga saata Cismaano waan fiicannahay dhismaha golaha deegaanka Cadaado si fiican ay u socotaa waa tahay daawudow adaanahay dhalinyarada sidee uga qayb qaadan karnaa ama kaalin noocee ah ayaan ku yeelan karnaa dhismaha golaha deegaanka degmada Cadaado Israel sidee uga qayb qaadatay Soomaaliya wax badan uga bedeleen ayaa anaguna uga qayb qaadan karnaa dhalinyaro ahaan waa tahay daawudow Israel waxay haayeen urur halgamayaal oo waxay bedeleen halkii Soomaaliya ku socotay gumeystihii ka hor marka dhalinyaradu sida Israel u bedesho kale arintii Soomaaliya ku socoto kale ma u bedeli kartaa dhismaha golaha deegaanka Cadaado oo ma ka qayb qaadan kartaa Cismaano way u bedeli kartaa wayna ka qayb qaadan kartaa dhalinyarada golaha deegaanka Cadaado hadii ay jaanis ka helaan ama ay waqti u helaan sida aad ognahana golaha deegaanka Cadaado waxa gacanta ku haya odayaal ayaa gacanta ku haya horan ugu hayn jiray hadii haddana ay jaanis helaan ama oo waqti la siiyo wax badan ayay ka bedeli karaan laamiyo waaweyn ay dhisi karaan wadooyin waaweyn iyo waxyaalo kale oo badan waa tahay daawudow inkastoo dhalinyarada hadda jirta aysan u midaysnaan sida Israel oo kale miyaysan la gudboonay in dhalinyaradu ay la fariistaan odayaasha oo ay kala hadlaan waxa ay ka tabanayaan dhismaha golaha deegaanka Cadaado Cismaano way la gudboon tahay waana la fadhiisan karaan odayaasha si ay dhalinyarada chance u siiyaan qaybna uga qaataan dhismaha golaha deegaanka Cadaado assalaamu calaykum aadan xaaladda ka waran walaal wa calaykum assalaam faarax waan fiicannahay aduguna bal xaaladda ka waran soo dhawow bal war aadan waa fiicannahay ma sha Allah inkastoo ay anta aan isarag oo sidii loo galayba dhismihii golaha deegaanka magaalada Cadaado oo ay anta lagu mashquulsanaa marka xaaladda ka waran war faarax soo moogid inay dawladdu naga sugayso liiskii golaha deegaanka ee degmada Cadaado waa ogahay aadan inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ay ka mid yihiin reeqan sax iyo reeq qori iyo reeq qurac oo dhamaantood is haysta oo mid kasta oo caqabad gooni yahay isla markaana mid kasta uu dan gooni wato oo uu rabo in loo fuliyo marka arintaas sidee u wajahaynaa aadanow wallahi faarax waan soo dhaweynaynaa mid ayaan ula hadlaynaa reeq qurac iyo reeqan sax si ay golaha deegaanku noogu dhamaado si nabad ah waan qancinaynaa waana kala hadlaynaa waxa ay rabaan waa tahay aadan waxaan rajaynayaa inay nabad ku soo dhamaan doonto insha Allah oo Cadaado yeelo doonto golo deegaan cusub caqabadahuna ay dhamaan doonaan insha Allah assalaamu calaykum odayaasheena وعليكم السلام قبل سود وادا صونا قلا ماشان وحينو كو غبنغبينينay waxaynu ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyay ee lagu soo dhisi lahaa golaha deegaanka ee degmada Cadaado marka hawl adag ayaynu ku jirnaa ee soo dhawaada oo soo fariista maanta waad soo dheeraateen waa dhownahay odayaasheena waxa inoo sheegay inaad tihiin odayaashii gacanta ku hayay soo xulista ergada maxaad ugu tala gasheen qoondada haweenka oo ah laf dhabarta bulshada oo haween maandhow yaalo gabdho aad mahadsantihiin raggii baan meel aan kala geyno iyo si aan u kala saarno iyo reer qurac iyo reer qansax iyo reer jilab ayaan balanahay si baan u kala saarno maba aynan ku tashanayninba dumarka ee hadda waxaan rabnaa idinku wargelino howlahaas gabangaba ayay marayaan
23 xubnood ee degmada cadaado lahayd oo golaha deegaankana 23 rag ayaanba u diyaarinaynay bal adinku maxaad wadeen oo manala kaftamaysaan mise hawshaan dhab ayay idinka tahay oo waxaad doonaysaan inaad qayb ka noqotaan golaha deegaanka degmada cadaado sidee ugu fikirteen inaad ka tallaabsataan haweenka oo ah kuwa og dhaawaca iyo dhibta bulshada inteeda badan maanta ma waxay maraysaa inagoo taagan in xaqeennii la lunsado walle warbaad keenteen waana xisaab sax ah balse waxaynu ku dadaali doonaa in arrintaasi aynu haddaba talada ku darsanno maadaama aan marayno maalmihii ugu dambeeyey ee lagu dhammaystiri lahaa golaha deegaanka ee degmada cadaado balse iminka waxaynu ku qasbannahay in aan arrintaasi ku darsanno xalka reer qurac iyo reer qansac oo iyaguna muddooyinkanba waday tabashooyin ku aadan xubnaha golaha deegaanka ay ku yeelanayaan ee degmada cadaado balse waxaa garawshiyo mudan in muddooyinkii ugu dambeeyey haweenku Soomaaliya ilaa iyo heer federaal iyo heer stateba ee galmudug ay ku yeelanayeen xubno muhiim ah inagoo og in haddaba haweenku ay ka mid yihiin golaha shacabka heer federaal iyo heer dowlad goboleedka galmudug oo waxaanba ognahayba in maalmo dhaweyto ayba waddanka Soomaaliya kusimaha madaxweynaha ka ahayd gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sidoo kale dowlad goboleedka galmudug waxaynu ognahay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug iyaduna ay tahay haweeney marka haddaynu nahay odayaasha dhaqanka degmada cadaado waxaynu ku dadaali doonaa oon ku qasbannahay in aan haddaba fadhigan uga arrinsanno sidii gabdhuhu ay door muhiim ah uga yeelan lahaayeen golaha deegaanka ee degmada cadaado iyo weliba ha ka reebin dhallinyaraduba waxay noo ballana gabdho in aynu arrintaasi hadda talada ku darsanno kana soo muuqataan golaha deegaanka ee degmada cadaado marag waxaan ka ahay in haweenku degmada cadaado ay wax badan u soo qabteen markaana ay u qalmaan in xubno rasmi ah ay ka helaan golaha deegaanka ee degmada cadaado رحمة دي وانا كيدي راح شيء لا يسخلنو